كني هالو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل يوم طبعا ربع سومالي نقول هذا النوع. الصومالي ناتهاني الصومالي أهاي. الحمد لله. waxay soo jiitay magaca meesha ku qortay dadka gaalada ah. Ana horta gabar waxaan ahay Soomaaliyada walaashaaba nahay. Haddana waxaan ahay walaalo. gabar waxaan ahay Kristaan ah. Ereyga gaal ana horta gaal ma yihi. Ma fahamtay? Gaalada marka waxaad ku wadaa ku ilaah laawayaasha ah mase waxaan islaamka ahay. kuwa diinta ka baxay. Okay, waa ku jira Soomaaligu marka. Yes, waa ku jirta. Diinta ma ka baxday? maya horta thank you very much horta waxa wanaagsan anigu diinta islaam ka baxay islaamiyaanu kristaan baan ahay okay kristaanka dad baale way yihiin ahl kitaab dadna waxay leeyihiin magacaas laano ahl kitaab waa loo dhameeyay bas adiga diinta maxaad uga baxday hooyada abaha diinta muslimaha ayaga macaanta horta magaca macaanta aniga waxaan ahaa warda ana sahra leedahay hooyada aabay topiga ma taagana Facebook nama soo galaan hadda waxay soo jiitay dadka aan isku wareegay meesha dadka Soomaalida ah oo gaalada ah waa doqomo ay soo jiitay ma fahamtay xoogaa baan ku dhageystay xoogaa baan ku dhageystay ma maqashaan horta ku maqlay xoogaa baan ku dhageystay inaan topiga la qabsadaan rabay haddana afkaaga hadda waxaad ugu tiri maadaama islaam ahayn gaalada waad ku jirtay aan horta waxaan ku leeyahay walaali gabar Soomaaliyan ahay gaalo mihi magaca gaalo uma yeero waxaan ugu yeelaa Soomaali masiixi way jiraan dad badan oo Ilaahay ma jira dhahayo oo aad gaalo dhigi kartid laakiin anigu magacayga fiiri rasuulkuna wuxuu ku yiri wardaay qofku magacu ku sheegto ugu yeer waa akhlaaq islaamka ku jirta anigu gaalmihi gabar muslimadan ku aqaana anigana waan adii aqoonsatid gabar Soomaali masiixi inaan ahay wixii su'aalaha way weydiin kartaa سؤال جواب ما جرو لأنه ضد ما جرو حقا. دقن محا دقن نوغو يرتا مركا باي. دقن وحنا وحنا يعني دقن وحنا نجي أنا قم الله هيدكو عيبة وشدنا كنا وحنا نجي هذا يعني وحنا أركان مسكين. مسكين أنا قدام هذا مسكين أنا. مسكين لأنه مسكين حتى وكريته مسكين كمسلم كان لأنه مسكين كاس أعتبر دقيقة صوت على كل شيء فكرة ذي واحد هاي. مش كده يسوون. السلام عليكم. مدام أنا waxaan aaminsanahay in gaaladu aan diin ku korin like charmalka ama Britaniga Britishka diin kuma korin islaamka ma garanayaan macnaheedu waxa tahay diin macnaheedu garanay waxa tahay laano ma lagu baro iskuuladooda ya laguma ignorantna way ku yihiin yani kibir ba ku jirana in yar gaalada aqoon ma laha أنا waxaan Europe baan ka hadlayaa charmalkan la leeyahay charmalkan garanaya holisan garanaya Soomaali waa kama ma yaan wax ku fahansiinayaa waan ku soo dhacday in yar waxaan ku fahansiinayaa in dadka Soomaaliyeed markay yiraahdaan diinta waanu ka baxaynaa maaha because diinta islaamka ma aaminsana waxa weeyaan because dhibaato ay soo arkeen iyo aqoon la'aan iyo fahan aan fahansaneen diinta dibadda markay yimaadaan Europa Europe markay yimaadaan ama markay Mareykanka tagaan aad bay u jeclaadaan sida gaaladu la dhaqanto bani aadanka مثلا for example okay faanu waxaan aaminsan yahay Soomaalidu markay diinta ka baxayso kama baxayso because Ilaahay bay nacab yihiin ama diinta nacab tahay ama Soomaalida nacab tahay waxay ka baxaysaa because wax nafsiya oo daqad nafsiya ay haystaan because nafsiga nafta xanuunaysa ya si oranayhaa aan marbo dadkan aan dhex galo leena diintu waxay leedahay usluub inaad ku socotid diintu waxay ku leedahay inaad ku socotid nidaam faqofku marka soo nidaamka aanu baran isagoo yaa si fiican loo fahansiin oo si yar jacayl lagu fahansiin oo naxariis lagu fahansiin of course marka qofku weynad xornaya it's too much it's complicated fa Christians ka raacaya Christian maxay tahay maantana laa wad tukanaysa walaa wad soomaysa walaa waxbaad ku dhaqmaysaa ma garateen malaha laga yaabo kuwa jooga Orthodox kuwa jooga Russian kuwa jooga xabibti waxna waa waxa adigu qofka aad u halaysid waxna waa qofkii oo goor taagan oo aad weydiinaysid maxaa yani hadda adiga hadlaya hadana aad isku jawaabaya yani aniga baa xukumaysaa anu Soomaaliyeed baan ahay ma ku xukumaya adiga soo goodiin adiga su'aal just second see ani Soomaaliyeed baan ahay Soomaaliyeed wadankan ku dhalatay Ingiriiskan jooga kuma aan dhalan kumana aan soo korin qof maantayto aniga hadda kula hadlaysa hara leedaha
lana baan deganahay Soomaaliya quraankan ku soo dhigtay waana ku soo dhameeyay haddana waxaa soo bartay from Faatixatu Baqara macna al-Qur'aan baan bartay okay 40ka Riyaad Saalixiinka Fathul Majiidka Buluuq Maraamka kulli ayaan soo bartay waxaan ahaa shakhsiyaadkii ugu horeeyay ee dadku ay ugu yeeri jireen akhwaanul muslimiin ee indha shareer iyo jilbaab diraacayna bilaabay baan ahaa yani qof inta timid ama dhaqanka cadaanku la booday ama nin Jamaican guursatay ama lacag uga baxday diinta ma ihi يعني هنا حكومتان ديريا يعني دينتا واد كبخداي مايا وان كبخاي وانا كتغي دينتا oo meelan ku galay ba hadii ha marka adigo waa mahadsantahay adigo marka adoon charge gareynin oo dhihinin ma aragtay dad saasa jiray ani weydii marka saabta roo baxay adiga ma ka hadlan adiga horta Soomaalida waxaan ku nacbi marmar wax ka soo qaadanay personal general okay general Soomaalida general baan hadlay inka soo baan ku diinay adiga ku sabsan waayo ba diinta uga baxday su'aal diinta islaam macnaha diin waa isla fahmo diinta macnaheedu islaam ana ma arko kristiyaanka imika 2019 diin maaha fa ahlul kitaab waa loo dhameeyay waxa u dhameysay Room غلبت الروم magaratay Room baad timaaday oo u dhameysay diintii buugagtii oo dhan bay xumeysay yahuudii oo dhan bay xumeysay buugagtoodii Tawraat Injiil wax jira ma jiro doesn't exist ya fa adiga laakiin soo aan ku diinaya waayo ba diinta uga baxday maadaama aad quraanka dhameysay okay diinta waxaan uga baxay ana ku sheegaya fikradda aad leedahay kitaabka maartay injiilka waa la nasaqay ama ma jiro Room baa badishay waa adiga fikirka taas horta ka leeyahay diinta waxaan uga baxay sideedaba horta aniga diin baa lagu dhashaa oo shakhsi ayaa diin intuu caloosha hooyis kala soo baxaa soo diin haysta ma aaminsan fikirkayga saarahan waxaan aaminsanahay qofku inuu dhasho isagoo qaawan oo waxbana aan maskaxdiisa ku jirinin bay hadda ama reerka markaas uu ku hoos dhasho haddii ay Chinese yihiin iyo haddii ay Sacuudi Carabi yihiin haddii Soomaali yihiin oo waxay cunaan ku qasban yahay inuu cuno waxay aaminsan yihiin inuu aamino uu ku qasban yahay ilaa uu ka gaaro xilli maskaxdiisa u qaybsanto oo doorasho uu gaaro diin baa lagu dhashaani saarahan fikirteeda ma aaminsan aniga ahaan marka maadaama aan yani diinta wad soo baratay jilbaab wad xidhneed dibatan waxaad tiraahday oo waxaan aslan waa too much ya bani aadanku inuu go'aan qaato okay all right dibatan qana Christianity you saying for me or you asking me maana idin wadiina samta bay dhahaya adan taasoo fikirta adigu conclusion ka dee aniga waxaan kugu yiri diin in lagu dhasho ma aaminsani waan dhashay qoyskan ku dhashay ayaa mar walba waxay cunaana inaan la cunaa ku qasbanahay si u labistaan ku qasbanahay yani waxay aaminsan yihiin inaan aaminaa ku qasbanahay waana shakhsi walba ma fikir yani saas ah markaas waxa imanaysa xilli marka wax kasto la soo baray wax walba lagu akhriyo go'amsa jirbad ahayd marka diin ka baxday can I finish my point again maanta waan ku fahmay ha waxa marka imanaysa xilli qofka maskaxdiisa ay u qaybsanto waxaan masaxba waxaan ma khalad xilligaas waa da'day xilligaas ka hadlis waa da'day xilligaad aqliyeeritid oo soo gaartid ama 18 ama 17 hadba dadka garaadku wuxuu u kala ama 20 ba soo gaartid way waa xilligaad adigu ku istaagtid aan cinda hoos joognin ayaa doorasho yeelan kartaa inaad buugaa kala fiirsid oo akhristaankiisa ay maxaa kale soo arsa okay عشان dadka aan fahansiino dadka daawanaya iyadoo yar quraanka ku soo kortay oo lagu fahansiinay quraanka fa waxaad mudeen tahay qasab لانه waxaad ka timaaday bi'ad oo qasab ah xagad ku dhalatay aniga Muqdisho okay waxaan ilaahay waayeen hadalkan ilaahay waayeen dadkii la joogay daawani way garanayaan anigu waxaan Soomaalida waa lagu soo qasbay diinta waa lagu fahansiiyay qasab wax kasta qasab jilbaab qasab tuko qasab quraanka akhri qasab of course marka degtid Yurubka waxaan ku hadlay hadal kale kan anigu mankiin hadal kale فأنا واحد هذا exactly واحد تراهذا إمك أذوق واحد تراهذا إمك سهراي أيام أنا ويداهي فأنا واحد هذا سبب تصميم دين تقصارا وبلا شعائر لأنه كلمة قصب واحد شكت شانقر قصب كبير ماشي تكون دلتي ما واحد القصب باتري قصب حجابك قصب كذا واحد القصب باتري ما تكشي واحد مكان واحد كوي شخص والبا ماشي كل الشو ayaa waxay maasti tahay ma taqaana in uu waxay cunaana uu cuno waxay xirtaana uu xirto sidee u hadlaan uu hadlo sidee u dhaqmaan uu dhaqmo ilaa qofku intuu weynaado asagu go'aan gaaro waxa fiican iyo waxa kala garto صح waan ku leeyahay لانه قصب diintu maaha faadigu qasab bad ku soo kortay dibadna waxa tiraahday waa qalad qasab dhageysi macaanto qasab baan ku soo koray kuma dhihin waxa kugu yiri shaqo adiga ilaahay ما هذا دام مرمينا ندي كل هذا هذا صار ما مرمي هذا قاعد هاي
maya dadka weydiiyo kuwaas kaliya ba ku dhigsanaya markaad ku dhalatid China oo hooyada iyo aabaha gurigiina laga cuno sida dooga ama for example ama Buddha la caabudo waxaad ku soo barbaaraysaa waxa markaas meesha yaala ee diin laguma dhashay ujeedkaygu ahay oo kadka su'aal buu weydiinaya ma tiri qasab samee oo dhan qasab laana waxa mudsan anigu inaan hadalka iska bedelay anig maya haday adiga waxaad tiri markaan hadlayo waxaan u hadlayaa majority-ga aniga ma hadlaysid waxaad ka hadlaysaa sida xaalku yahay anigu kamaan kula hadlayaa أنا سيدو كلا هذا كله هلا وحقوق إيري شخص دين كده شمتشرو أو مر كده شو ورجع وكده شيء أيو آمنة وحلقة عنا وحسن الله الله يوحل بحاس يس نمبر 1 نمبر 2 واحد رهضي محد آمنتي أولا دين توحد كسر كرتي لأنه جلباب قاطي جلباب مسجلباب هي ما كده جلباب حرة سؤال وحنها لقيسو وحنها شخص جوجوري guriga anigu aan ku dhashay jilbaab ayaga u keena laftigooda oo familkayga uga yaabaan ugu dhahan maxaad u raacday qolyahan aqoon adigu qasabtay ma jirna aniga ana doorashadeeda u xirtay inta jilbaab heenta aniga dhowri toban baan jir marka jilbaab xidhatay dhowri toban yani 20 ma gaarin ha 20 ma gaarin soo marka oo diinta kood ka baxday bacdeen maya 20 maan gaarin markaan jilbaab xirtay oo reerkaygu dad Soomaaliyeed garanaysa dadna waxay ahaayeen dad iska muslim caadi oo shintooda waqti tukada oo deesay iska labista xilliga aqwaani muslimiintu Soomaaliya yimidna waxa yimid jilaabiib in la xirto in sharar leh okay imsa jilbaab tahay marka adigu ma ka tiraahdo xilliga aqwaani muslimiin jilbaab tahay maya ani daadayda waxa weeye is my privacy maya hadalkaas waa muhiim jiddan aqwaani muslimiin waxay timaadaan ani shay dadka u sheegay wax dad ma garanayaan إخوان المسلمين وحي مادن هذا مركي قالضي وطن الإسلامي يردن عربتي يردن أولو هساي بعدين ضدك إخوان المسلمين قومي تماضي وحي تماضي فقط عشان لا إله إلا الله محمد رسول الله عشان دين تهلا بديو لأنه قالضي وحي سمي colonizing استعمار كي هذا مركي بريطانيين تيو فرنسيين تيو إيطاليا طلياني تيو ضدك برتغيسكي مركي ضدك سي حجاب كأنه اسكولة عادي ودي قلنا الصوماليا oo maaragtay isheeg madaxu noo qaawanayso ayaa xilli waxa jirta xilliga dagaaladii ayaa waxa soo gaaray inta dagaalada ay soo gaarin oo furta ayaa waxa soo gaaray dad la baxay magac leeyahay aqwaan muslimiin oo saddex u kala baxay markii dambe al-ittixaad at-takfiir iyo al-islaax u kala baxay baa jiray taariikhdaas ma aha waxaan ka hadlaynaa hadda waxaan ka hadlaynaa yani islaamku ma sax baa ma sax ma aha أنا ما كأج أنا هدف كيجو حاجة ما ها صح يا صح معها طبعا نمبر 1 فاهم نمبر 2 لأنه حدوني فهمسيو لأنه هذا كفهم هدف كيجو حويا حدودك الصومالي وش هذا إنه السبب تدين توقع حضي وبيكوز نفسي وضحانو صريسان أنا ما حنوصل وحباري قدن أديك ما هذاك الصومالي دين تكبح حضي ويحانو سنة يعني لأنه ما ها والله ما عاي والله ما عاي والله أنا وقف عن سما كلها هذا لك هذا ما حنسون سيد أنا ما كل يوقف كحنسون ما هنا لقى أركن حنسون يوم أنا حنوك وحنوش هذا وحيس عقدت بكاس دينته لأنه مركي أركان وحابب ضمبي أركان كان اسمه رسم بني آدم نمبر 1 نمبر 2 تعال ما توصل فأنا حاسس حاجة فكرت حنوك أنكور حتى هذا أنكور يعني بخاطر ما عيتميسي هذا أنا وحاطري واحد حنون سنة سبعة دي يعني أوكي دي مالي وحنوك هذيك ما كانوا حنون سنة يا أنا لا صاحبي قدين تكبحها قدين تكبحها أنا كمذا قدين تكبحها يبقى كمذا قلبي جينا وحكو شرتا هذا يرى بلا جعل فما جعل كل ما هذا حقلي جعل ولي ما دو أركنده ما يوحى قليل كل شيء هذا ماشي كنا شباب وجلسده بيأتى كنا شهر مايا أنا أبي هايو أنا يدعي اللي بعده وهاي أسوق فرصة قولي دمبارة وحروها مذاح وقولي جعلان كم صورتي أنا وحان ده هو على قوانا يا بالقبن شري لكن إسلام كده هويدا أباها نبشكل أوكي هويدا أباها نبشكل هويدا أبا عمل بهايين ونين الناس مسلمين أو مسلمين أو وحي هايين دتو كذا هويدا أبي مكالش كين إيه وحوشيت كذا ما يدا سدي كو أركان سدي كو سكوريين سوى ناكسن وتشعش هويدا أباهنا أنا بقولي وحنا كأها كويري وحنا هم أنت بريس بالكريه هذا لو بريس بالكريني يعني وحنا كأها قفك بقولي معمولا قف حلو قولي دقة ما أوكي أوكي دينتنا عشان نكون فهمنا والله عشان نكون فهمنا خبر يا قف ما تهم مدام أتكهل لسد محل إخوان المسلمين وحتى خبر بقى يتهم فهم موجي يوم كفر أنا يعني وجهي ما عرفتي ما يقف غير متي خبر
habar hadda ay ku noqdaan dhib ma lahan habar lana waxaad ka hadlaysaa waxaad ka hadlaysaa xilli bas hadlaysaa anagu soo waxaad ku meeraysanaysaa da iyo waxyaabo kale anigana waxaan rabaa inaan ku tuso waxyaabii diinta islaamka waxaan ka cararay inay iyada ahayd oon gurigeygana ka soo cararin islaamka ka cararay waan ku tuso haddana ku cadayn karaa waxaan anu سوبر مايا حتى كو عدينيا مايا ما هي عدين اوكي سوغير سوق اوكي انير سوق سؤاشتا او دونكو anigu waxaan da'da ku wareegayo hada laana qofku maxaa la yiraahdaa markuu da'diisa sheego oo diinta way ku xirantahay nafta ku xiran tahay ma garateen fa qofku ku haweediisa raaco waa xilliga 17 20 especially xilligaas oo kale hada ayuu bani aadamku diintiisa in yar noqda confuse هو normal of course markii uu tiraahdo hada ma daa qiyaasi masana wadinaysa adiga soo adiga lahay akhwaan muslimiin bay tamaaday jilbaaban xidhnaa waxban xidhnaa bointiga ku daboolaysa aniga waan rabaa ka hadlo waxaan kugu yiri aniga guri farxad la ku soo koray laakiin markaan guriga waan ka boodnay okay markaan weynaaday diinta islaamka ayaan ka tagay anigu sababtan uga tagayna waan ku sharxi karaa dad waqtiisa laakiin sababta uga tagtayna sabab aqli gelisa maaha laana waxa tiraahdo adigu markaan 17 sano ma adiga ogaa ولي ما ديقو adiga laha tubid ku soo diinta aniga keefkeyga u qatay ma yaad wali ma aniga sababtan uga tagay baba ku sheegin be su'aal ban ku dinaya anta aan ka tago hadii ma aragtay dad kale inaan la sheekaysato rabtay ma adiga doon ku sheekaysto laakiin su'aashayga ma qabo aan try inaad fahantid hadalkayga hello I'm waiting number 1 diinta islaamka ma kad baranaysay inta badaheed quraanka ma kad xafidaysay inta badaheed okay from ana ku sheekaya maxaa sheekaya su'aal jawaab diinta ma kad baratay inta badaheed markii dugsiga la geeyo 5 ma ku jira dugsiga la geeyo oo loo 5 sanadood ku soo bartaa ma fahamtay ya okay 5 sanadood diinta ma kad baranaysay adiga waxaas maxaa ugu macnaa diinta islaamka waxaan kugu yiraahdaa khaladan ka dhaxarkay baan uga tagay miga dhigaysan kartaa ده هو مهم ضدك عشان هفهمان هذاك السبب هذا sababtayda maanto iyo habar yar iyo waraba maya sidaad rabtid baan ku dhaho aniga waxaadan maqan waan ku sheegay background-kayga wax yar waxaan ka siiyay clip inaan qof diinta uga baxday yani diin aqoon la'aan aan ahayn waxa muhiimadu tahay marka maxaad uga baxday inay weydiisid marka laakiin waxaad ku noqonaysaa xaafadii iyo hooyo iyo riski iyo waxaas xaq iska dhig aniga muhiim u tahay aniga dadku fahansana aniga doon dadka fahansiyo aniga qof weyna ayaan ka baxay diinta khiyaarkayga uga baxay sababtan uga baxay aniga su'aal ban ku leeyahay ada su'aashayga jawaab suda number 1 waxaad 5 sanad ahayd 5 sanad ahayd markaad quraanka baranaysay sax ilmaha dhaw Soomaaliya oo dhan lagu geeyaa 5 years okay walugu 5 years tabeetana markaad noqotayna imisa jir bad noqotay aad xijaabka xidhatay kaliga adiga ilaahay kaliga xijaabka xidhatay and by the way dadka u fiirsada xiriirkii caawurta iyo ahliga muu jirin marka anigu leeyahay inta badan Soomaalidu laano diintu waxay tiraahday hooyada iyo aabaha inay caruurta quraanka baraan waayeen ay ku dadaalaan mahana meel lagu tuuro dugsiga ma garatay oo macalinku soo dilo oo soo koftado oo wax ku sameeyo macalinku majority diintu waa sidaas anu dhaqan Soomaali hay keenin laano dhaqan Soomaali fahansan majority diinta ayaa waxay tahay macalinku koftado ma tiri ku xali waxa tiri caruurtu u dilaa uu waxdu ku sameeyaan way maqlaan dadku way dadka sheegay aan fikra anigu ma sheego waxbana ma garateen fa adiga hadaan adigu ku taaban wax fiican la kiba tahay laakiin caruur baa la soo xumeeyay because of dugsiga way dhacday taasina hadaba anigu qoliyo la soo xumeeyay kuma jiro laakiin xumaanta diinta islaamka ayaan ka dhaxartay waan ku sharaxay hadda diyaar u tahay xagga dhig caruurta la soo kufsaday ma fahant okay ma wajirta man kuleeyahay anigu maya ha jirto aniga dumar hadaan ahay ilaahay dumar buu iga dhigay soo maaha sida maaha maxaa tahay walaalo habar yaro okay habar yaro oo habareerta ku wadba aniga dumar soo mihi akhriskaada hadii soo maaha okay qayb ku jirnaa ma qayb ku jirnaa xabibti ma aan ku maqlay wallahi sheeg aniga diinta islaamka ka cararay ma fahamtay diinta islaamka waxyaabaha uga cararay ilaa hadda way ku jirtaa adi haddaan ku weydiiyey marka diinta islaamka goormaa gashay ilaa maanta ana su'aal weydiinaysay goormaa qaadatay ku dhashay see ugu dhalatay bani aadamku ilaahay wuxuu ku rahay hada
إن المسلم تهين ونوشقنا إلهي وجه وحاس قرآن قرآن هاي المسلم بانهنا مسلم كنا أنا عدنا كمسلم بانهنا الحمد لله أنا وإذا أبوها مسلم أبا عبد مسلم إلهي ما مسيت إنه حقي هاي of course 100 أوكي هذيك مركو صومالي أنتو كوجو دليل قيس إسلام كوجو دليل وأد مركو اللي جويدي الحمد لله أنا معربي وإلهي هاي كان شاينا كودا شيء ما يري عن دورانين إنه كودا شهويسو الواحد شنك عمل له عبودة يا أما دوك عنيسا يعني إلهي محو هذيك كاغا دورتو صوبا ما يعني محو هذيك جوني وكوجو دورتي إن إسلام كوجو دليل ومدها قارنا ونسلام كوجو دليل وحكمة إلهي وحبين لكي وض لكي إلهي مركز دتك سووك الإحدام يعني ما هي أوكي وسمي سماها إلى هذاك وسمي الصقر فعدا ها هذيك مركز صومالي وكوجو دليل عرفتها هاتو إسلام بيهات إسلام كوجو دليل كان تشاينا يا بودي تشوغا أما هندي تشوغا وكوجو دليل قومي داس كلا إلهي مركز حق وي أوكي سماها وعساك ودي اوكي انا قفت مع اوصل نقطه بالطبيق انت صانين سؤال شيء دي بيحي وافهم انت وسميه مركا انا قفت مرانه اسلام كمركان فيريي او برقي احاديث سو برتay quraanka bartay waxa ii soo baxday ani ilaaha islaamku ka sheekeynay ilaaha qoomka abuurtay mise ilaaha islaamku ka sheekeeyo ilaaha islaamku ka sheekeeyo in wax maaragtay aniga aan aqiba ah ama jaceylkaad maanta ka sheekeynaysa midna aan wehaynin kow ka dhigay naag buu ka dhigay yes waan ku qanacsanahay naag ahay wuxuu ugu sheegay diintu waxay ugu sheegtay naaqusatu aqli wa diin way tiri ma fahanti aqli iyo diinta naaqus ka tahay وحديث وين لكن وضع dhagaysan ku dhameystir xabiibti hadaad inaan kaaga baxaado kartid kaaga baxayaan وحديث ku sheegay on xanaaqda nastajiyo ma sheeg ugu maqlaynaa waxaan u sheegayo sababta inay diinta ku dhex jirtaa ma moogtay sababta u sheegayo ma fahanti okay wad okay dumar hadaan ahay waxaan Allah kula jooga ma yaalan meeshan wuxuu ugu sheegay naaqusatu aqli wa diin wuxuu dhaxalkii aabahay iga qadiyay maxaa la yiraahdaa ninkaygii waa 4 naagood siiyay maxaa la yiraahdaa ii sheeg nabigii baa inta la dheelmiyo 90% wuxuu igu soo arkay anigu ku jira naarta ka bacdi markii la weydiiyay wuxuu yiri ragoodii bay ku caasiyeen yani islaamka Allah waxa aan ku soo raaca anigu iyo waxa hadda aan dhaho la jecla ama jacayl ama ilaahnimo aan iga muuqata ma ay jirto sida la aligeed ayaa markaa waxyaabo fara badan oo meesha ku soo koobi jiray aan ku arkay ayaan waxaan dareemay ilaah kale inuu jiro oo xaq ah oo daahir ah oo quduus ah ma fahantii sida ayaan markaas inta uga tagay islaamku marka dumar hadaan ahay waa mara dhaxalka aabahay iga qadiyay waa mara naaqus aqli wadiin buu ugu sheegay waa mara ninkaygii waa adduunka 4 naag siiyay aakhirana wuxuu siiyay wama malakad iimaanukum siiyay iyo 4 naagood haydaak ku dhibsanaysa xabiibti waan ka tagay habareer ma wax maqlaya ha okay fiiri inaad ii tirisid baan rabi lahaa ma ogtahay ما كنت ترني والله هدفك ما هنا كنت تريو لكن جوابك كوسين كرا اوكي waxyaabaha soo dhibaato dhan buu islaamku ii geystay aniga markuu ii geystay waxa hada dhaxalkii wadiday dhaxalkii waa waxaad ka dareemsan tahay inaan naaqusay dhaxalkii waxa doonaysaa ninka in afar dumar bala siiyay naaqasad aqli wadin baa tiraahday iyo maxaa kala tiri waxa kugu yiri ilmahayga aniga soo koriyo wiilka ahaa ee 5 jiray ayaa soo 5 jiray waxa lagu leeyahay anigu wuxuu ilaalinayaa candhadayda muxram buu noqonayaa xajku geynaya ama rag kale uga ilaalinaya taasna waa wiilkaaga haduu 5 gaar ah muxram ku noqonaya ama 10 jira okay 10 inuu jiro ka soo qaad 10 baynu jiro soo kaan dheelana ma aha markuu noqdo baalig ما يبلغ الحلم مركو بالغ أنا دالي إنك كاغو markad weynaatid u baahan tahay mise u baahnid inanka markuu weynaa markad weynaatid inankaygu markaan anigu dhalay ana ka soo qtiray xaarka soo koriyo soo abaabiyay muxram buu noqonay anigu wuxuu iga ilaalinaya sinada maaha محرم يعني حوين ما قرصن كتير waa inankaaga محرم يعني hortiis wad ku meeran kartaa isku dabaalan kartaa saas kamoodo muxram buu ku noqonaya markaad bixaysa asal safraysa asal la safraysa muxram ku noqonaya صح waa صح sababtu muxramka igu noqonaya waxa ilaalinaya عشان إن كل هذلن إن ما كتبت أفريقيا ما كتبت كان anigu dhalay baa wuxuu iga ilaalinaya inaan la hadlo anigu silaalin way Soomaa naaqasto aqlu maya markuu inankaaga kula socdo inankaaga markuu 30 sano jiro adna 50 sano jirtid مثلا ama 60 jirtid ma garatay inankaaga markuu kula socdo dadku qiimo ku siinayaan nin baa kula socda kama habarkaas ma aha kan waxa la leeyahay aniga inaan hadaan koriyo oo anigu ما تفسيرك هو غلط مع الأسف تفسيرك هو غلط حاجته كلمة تجي كرو إنه محرم إنك يجي ينقض عم الرجال يجي إلى عليه عم بناك يجي حي تاس ما غلط بايد لأنه ماشي واضح إن من
aniga ba qaadanay walaalka yar ma qaadanay 20 sano jira ba qaadanay walaalkii 20 sano jira oo kornay kaale iraac xajka iraac diinta ku soo ina muxram lagu noqdo لانه دينته protects me دينته aniga daafacaysa protect you from who from the animals for the other men the animals and حجكو wax weyn wada ciriid waa wada niman ma garatay okay you say the man is kara waa lagu sameeynaya okay do you say the man is animal look kelmadan ilaahoba ku dhigin hadalka faham sideedaba ma garatay that's the thing walaalna the thing is wax weeyaan diintu dhaxalkana dad doonaysa fahdid waayeen waa dad doonaysa fahdid hal mar baan ku weydiinaya xuquuqda aniga marka islaamku siiyay as dumar ya يعني رسولك وحال يري بالي ما السلام عليكم عليه الصلاه والسلام بقول هذا طبعا اقول هاي بس I respect you okay وحال يري صدح مره very nice very kind from you no I respect other people's view عليه السلام very kind صدح مره وحال يري ولا بوحو يري امي وحال يري هاي ما حاوتري جبريل بان مقلب ويري او وحو صدح معناته هويده وحو سي صدح مره وحو سي يري حقوقده اوكي xuquuqda marka qofka muslimka ama dumarka muslimiinta kala xaq ay naga dhigay qofka Soomaaliga ah ee muslimka ah maanta la siiyo oo muslim ahaan lagu siiyo kaliya hal mar baan arkay halka mar waa marka inankeedu uu dhinto ama la ceebeynayo oo maxkamad la keenayo uu xaday ayaa waxa la yiraahdaa ina caashe hebel ayaa maanta la tooganaya ina Faadumo Qadiijo ayaa tuug ah inta inanku sharaf leeyahay dhan aabihi baa loogu abtiriyaa ma fahamtay inanku intuu sharaf leeyahay dhan aabihi ayaa dhaxalkiisa qaata aabihiisa ayaa diyadiisa iskale aabihiisa ayaa magtiisa iskale halka mar ee dumarka qofka islaamku ay naagta ugu abtiriyaan waa markuu ceebeysan yahay oo fadeexaysan yahay ayaa waxaad maqlaysaa ina caasho Faadumo ayaa maanta qof halka ku dilayo maxkamaddu waxay ku xukuntay dil haye ina Qadiijana waxabad kuna beed buu xadayo hadda waa kaas markaas weeye aaw xuquuqdii marka nabiga uu yiri saddex mar ay hooyadu leedahay xaq halka mar baan ka arkay halka mar waa markuu ceebeysay inuu wisharaxi ka taas adunku waxaad raahday dhaxalkii bad ka hadashay waxaad ka hadashay aan ka hadalno kusoo hadashay dhaxalkii xuquuq saddexda mar aaw xuquuqda xuquuq waxaad ra umuk shaysa hal mar baan arkay oo marka hooyada loo talagalay taas hooyada loo talagalay hooyada halka xuquuqda la siiyay hada maya hooyada xuquuqda la siiyay hooyo waxay tahay habar saddexda mar oo la yiri ummi waa markuu wiilku ceebeysan yahay waa markuu buko waa markuu dhimasho loo sii wado tiirka la saarayo waxaan ka aragnaa baraha media okay aw waa ayna xuquuqda aw yar okay maqlan تا وطا وين واحد اسكو فهنو عشان نعاويو عشان ان شكل ها هيكتو اوكي نمبر 1 وفي افكار كينا نرتب رؤيال عشان صيف عنو هذا سماها شو ان هدف كنا waxa weeyana in jawaab ku siiyo waxad su'aashada number 1 okay قاضو أهلا وسهلا ما قاضن إن الله يهدي من يشاء والله يحكوا لها الدين توا حربة طهي قاضوه ما قاضى ذي كوتها very simple ما قالت هي number 1 دحك كهضنا كنتن دمركا يعني محلها هبلها وحويان وحي قاضنا يعني إنير نمضي وحي قاضنا إن بدن أيدي وين لقوا الله سبحان الله ولكن ما ينكو شيء يعني لأنه بيئة كسكرنا لكو بيئة إسلامية معها عربتا يا صوماليدا كونفيوز waxa keenay aslan ba laano xuquuqdii oo quraan ku qornaa kuma qornaa dulkeena taas waa number 1 tawana fahamtid Soomaalidu iyo Carabtu kama shaqadooda ma haba aslan ba inay quraanka waxa ku qoran inay ku dhaqmaan laano hadii ku dhaqmi lahaayeen quraanka waxa ku qoran Soomaalidu may ka bixi lahaayeen wadankooda oo ana ku gaalo ma tagi lahayn ma garatay gaalada intay wadankeena soo baabisay ayay tiraahday gaalada kaale welcome gacanta inoo banaadisay number 1 Soomaalidii iyo Carabtii qof kasta wuxuu qaaday hawadiisu raacaya فإمك واحد وقت كهلسد هذا of course كما هلسد وطن كينا لأنه وطن كينا وضد كبابا أي وشهوده ذكر شقيسين يسوع number 1 فحقوق ذا الشيء يسد هذا of course إلا هدو قف لهاي قلبي يسار رحمة يون فكر يو عقل حكمة سوى هلسة طارت وين تفهمت number 1 number 2 دين توحي ترهضي
diintu waxay tiraahday dumarku marka in yar dhaxal in yar qaataan waayo laano dumarku inta badan walaalkeed baa ka masuula abtigeed baa ka masuula adeerkeed baa qofkaas waa ka masuul yahay laakiin waa shaqeyn kartaa shaqadeeduna waa shaqo aan nimanka dhex galeen yani wax way bari kartaa way fariisan kartaa waxay u sameyn kartaa way maxaa la yiraahdaa waa protect diintu waa protect ma garatay wax way qaban kartaana عربتها Soomaali ma tagto weliga ma arkin اوكي حبرري Soomaali مثل حضرتين شكرا ما يسبد جوابك وسينا جواب بتعرف حضرتي لبعضنا tan baa kaaga jawaabaya hadda fiir habar waxaad tiri gabadha marka dhaxalka wax loogu yareeyay waxa mas'uul ka ah maartay ninkii guursanayay ama walaalkeed ama waxeed Soomaali anigu ku dhasho ku soo barbaaray Soomaali markii la soo qaxay iyo markii la deganaaba islaam waxaan arkaysaa ilmo laga dhalay looga tagay mid kale la guursaday tiiho ayadoo yani hatta islaamku ma kulay mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahida xitaa wax ku dhaqma ma laha ma fahamtay waxa dhacaysa hada ku sheegay anigu suge wax ku dhaqma ma laha aniga waxaad hadda qolkan waxa ku jira dad badan haday runta ka hadlayaan hal shakhsi oo inta aabiis iyo hooyadiis ay isla joogaan aabuhu soo shaqaynayay oo biilayay uu ku yaraanaya hadii maanta ay runta ka hadlayaan islaam walba ayada ayaa inta ilmaha lagu furo yaanyaba la fariisato suuqa ma fahamtay mid kale ayadoo tii kale guntiina loo gadinin ku kor cadaato lagu kor guursado ay dhaqanku saas u ah Soomaaliya ma fahamtay anigu waxaan ka dareemayaa adiga dood laakiin aan hadaf lahayn waxa weeyaan brain jogging falsafad waayeen brain jogging taas waa number 1 talabaadan ka dareemaya waxa weeyaan in dadka akhlaaqdooda iyo khata'ooda iyo wixii ku xun u fiirsatid aad raadid diintu waa tan kuma dhaqmayaan waka diintu way xun tahay adiga shaqadada maaha no diinta laftigeeda xun diinta fartay waxa maaha qalad adiga dadka kala saar no dadka xagay naga dhig dadka xagay naga dhig kala saar adiga ka hadlaya diinta laftigeeda ma aragtay diinta laftigeeda ayaa fartay waxaas anyway ku wareeriyay haday fartay xikmad bay u fartay mushkilad xikmad laakiin adigu xikmadda ma garanaysid leena dhagahaaga iyo indhahaaga iyo qalbigaaga gambu yahay maya adiga wa tumsa ala qulubikum maya adiga dhaqan indhahaaga iyo dhagahaaga way gambi yihiin maskaxdaaduna wuxuu doonayaa hadaf kaliya wax kale buu doonayaa anigu ma ku caawin karo qofna ma ku caawin karo ilaahay dina ku caawin hawa number 1 sababta aflagaadada ugu soo qortay meesha oo leedahay gaalada waa aflagaadada ka bood ayna adiga mawduuca wad ku dhex wareegaysa isdareemsa dadka horta isdareemaysa inaad wareegaysid ma todan adiga wareega ma isdareemaysa laa jawaabad maqlaysaa walaa wax halka dhigaysaa ku soo galay fiiri inta aflagaada afka ka soo baxday iskama warqabti gadaal isu dhageyso anigu adiga ma ku caawin adiga magacaaga ma sheegay ma oran sahar waa saas ma oran كمبيوتر كاغا هادليسا انا لا هادليسا انا waxaan ka hadlay bashakil caam dadkii daawana la hadlay in general why you take it personally انا لا هادليسا did I mention your name ما دفاعك الدين الاسلام كحبيبتي الدين الاسلام مشكلته waxa weeyaan qofna ku caawin karo ilaahay kaliya aan hadalku ma maqlisidna aniga hadafkaygu ma ahan in adiga ku wax ka aqnaciyo absolutely ma hadafkayga ku aqnaciyo dadka marka aqoontu ku yar tahay marka dadku aqoonta iyo cilmiga iyo xikmadda ku yar yahay ma la hadli kartid aqoonta waa jaahil of course waxay jaahil laana ma ku hadli karo xiwaar communication ma jiro wad goynaysa hadalka sadoonis buu maqlaysa qofna ma ku caawin karo ma garatay aan waxaad ka fikirsidna oo dhan diintu waa saas by the way adigu حتى مسكينات baa tahay wallahi nashfaq عليكي والله يهديك الصواب وانا اشفق عليكي والله اشفق عليكي بالشيء وانا حناقض شفقه والله شفقه والله وكحمه هي لانه لا اقون ولا فهم ما والله لو adiga شفقه مسكين baa tahay لانه مسكين لانك مسكين لانه عندها قلبك وقم maxaad qosaysaa hysteria because hysteria bina qoslayno dareenkeeda ma ratibi karto dareenkaaga ma ratibi kartid waxaad qosaysaa hysteria عايتمد ما hysteria ما عاي لأنه dareenkaaga جاهل ما عاي جاهل ما عاي دفاع ما قريب ما هذا أنا هذا هل وحنا كوسو جبينيا ودada kaliya ilaah loogu tago waa Jesus say I am the way
and I am the true and I am the light. No man come to the Father except through me. Come to Jesus. أنا كوبي. والله أنا أقول إسلام بتاعي إسكا تكو ما قرأتي إسكا صح. ما يا أنا Jesus أنا كوبي يا مانتي. It's good. Okay, it's good. هاي خير. هذا يرسل؟ خير بكرتيني. الله يهديك. Come to Jesus. Come to Jesus. Come to Jesus. ما ركتان صومالي ما لها ذكرتها. ما قرأتان صومالي ما لها ذكرتت لأنه هو confused. لأنه هو جاهل. لأنه عقلي ما هستان أو حكمة ما هستان أو هذا صار له هذا ما قرنيان هذا له ذو قدي ويكون دحور ريجي سوح مالي يعني إلا فهم سنين فمركن ليه صومالي ذو ونا حريستا لأنه هو اسكا ما قرأت دقه ذي عنده ذو ضبال باصارا وحمد فهميان فسبحان الله ذي الله يقدر إمكن وياد نينقالا أو شرملا أما سويرش وياد أما وياد إنجليزي أما فرنسي وياد وكوش يجي وحدونه يو نمبر 1 نمبر 2 وكل جيسانية وحدون إنه أقنعه لكن أيقول لا وأقنع يعني لأن الصومالي ده هذا يعربته وحصار سن كبر يو ما قرأتي دقني ما يو وحال الجرنين بفهم سني ما قرأت